يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنا وبنيت المجد أطوادا شداد أنت يا ملهم شعب أن يبروا عشت كم حققت للشعب مراد ليكن يومك للشعب ودادا. bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhammaantiin waxaad kusoo dhawaataan casharkii shanaad ee barnaamijkeeni ku baraaf soomaali kombyuutarka inagoo halkii kasoo wadi doona barnaamijkeeni word. waxaynu maanta qaadan doonaa casharaan aada u muhiim ah oo ay kamid yihiin print previewgii marka baaswiidhka lagu xidhanayo iyo casharaan kale oo aada u fara badan. markaa kusoo dhawaada casharkeena. waxaynu maanta ka bilaabaynaa documentarigeena ama waraaqadaynu qoranno habka ugu fudud ee aynu ku xidhan karno baaswiid. markaa qoraal yar oo iska tusaala ayaynu iminka qoraynaa, kabacdi baaswiid ayaynu ku xidhanaa. qoraalka amase weedha aanu qornay ee cilmi bahasha education ayaanu doonayna in baaswiid ku xidhno inagoo marka hore casharkii hore aynu soo marnay practice ahaan u samayn doona. ama farta nooceedii oo kale hadday noqoto halkii la dhigayay iyo bold ama italic ay tahay farta ay noqonayso iyo midabka farta oo kale. markaynu intaas samayno waxaan isku daynaa bal inaynu ku xidhno baaswiid. baaswiidkaynu ku xidhina waxau noqonayaa mid markaan soo furanayno hadhow toole layna weydiinayo. waxaynu tegaynaa halkan ay ku qoran tahay file, kabacdina waxaad kasii dooranaysa halka ay ku qoran tahay protect document. halkaa markaad soo furto waxaad kasii dooran doontaa halkay ku qoran tahay encrypt password. waxaynu gelinaynaa 3 4 oo kale tusaalahaan. okay baynu yidhi mar kale ku celi 3 4. markaynu soo noqono haddaynu hadhow toole u baahano inaynu soo furno waraaqadeeni waxaa layna weydiin doonaa baaswiid. waxaynu isku daynaa bal inaynu tijaabino waraaqadeeni aynu baaswiidka ku xidhnay isla marhaantaasina aynu save garaysanay. waxaynu tegaynaa halkan file, kabacdina waxaan kasii dooranaa open, kabacdina magacaynu bixinay. halkan waxaad aragtaan inaynu weydiinayo baaswiid. marka baaswiidkii haddii mid aan ahayn aynu gelino inooma soo furmayo. iminka waxaynu ka eegaynaa 37 oo kale ma soo furmayo, waa ina diidaya password is incorrect, ma soo furmayo. marka waxaan leenahay dib inoogu celi, haddana open, ku celi mar kale, kabacdi 3 4 geli. saad u jeedaanba waraaqada way noo soo furantay. markaa wixii aad u baahantay waad ku qoranaysaa halkaas ayaad baaswiidka kaga xidhanaysaa. markaa waxaanu ku xigsiisanaynaa haddii la yiraahdo qaabkay suurtagal u tahay inaad ka dhigto waraaqadaadii mid aan baaswiid ku weydiinin. markaad soo gelisid waxaad tegaysaa file, waxaad kasii dooranaysaa halka ay ku qoran tahay protect document, bacdina encrypt with password dooro. baaswiidkii hore aad ugu qortay ka masax. markaa adiga waxba ku qorin okay iska dheh, kadib kasoo noqo, soo xidh, safe dheh. markaa waxaan sameeyey safe kale, kadib dib u soo furo oo dheh control o ama open, kabacdi soo dooro. haba yaraatee iminka wax baaswiid ah oo layna weydiiyey ma jiro. marka qaabkaas ayaad uga bedelaysaa ama saad ugu xidhanaysaa. waxaynu intaa ku xisiisan doonaa haddii la yiraahdo selecting a text. iminka tusaalahaan qoraalkeenan aynu samaysanay highlight saarayno ama se aynu dooranayno. laba hab waynu samayn karnaa. inaynu habkaas sameyno intaynu mouse halkaa dhigano, deetan intaan laba klik sameyno aynu saa u soo jiidno, ama se inaynu halkaa dhigno kabacdina saa sameyno laba jeer aynu klik sameyno. waxaad kaloo samayn kartaa intaad halkaa mouse kaga dhigtid halka keyboardka waxaad qaban kartaa shift iyo arrowga. markaa saasaad ku wadaysaa iminka shift iyo arrowga. marka habkaas ayay kugu suurtagelisaa. waxaan ku higsiisanaynaa qoraalka habkee ayaad u farabadin kartaa ama se aad u koobiyeynaysaa, kabacdi aad ugu dhigaysaa mid fara badan. qoraalka soo highlight garayso adigoo sameynaya hababkii iminka mid ka mid ah, kabacdina waxaad taabataa control iyo c isku qabo, kadib waxaad tagtaa halkaa doonaysid inaad dhigato qoraalkaaga. keyboardka waxaad taabataa control iyo v, saasaad ku wadaysaa. sidoo kale waxaad samayn kartaa inaad qoraalkaaga markii aad soo wada select garaysato, kadib aad halkaa home timaado, kabacdi groupka aad timaado,
halkaa ka doorato copy, dabeetana aad halkan enter tiraahdo, kadibna aad taabato paste halka ay ku qoran tahay. Marka habkaas ayaa ku noqonaya. waxaynu intaa kusii xigsiisanaynaa qoraalkan markaad doonayso inaad meesha ka jarto isla markaana aad rabto inaad meel kale u rarto. waxaynu dooranaa qoraalka, kabacdina waxaynu sameynaynaa halka ay ku qoran tahay cut aynu soo dooranaa. cut markaanu doorano waxaynu imanaa halkan ama meeshaynu rabno, kabacdina paste ayaynu leenahay. marka meesha doontaad geysanaysaa. keyboardka waxaad taaban kartaa control iyo x ayaa kaa xigta. marka hore soo select garayso, kabacdina control iyo x isku taabo. kadib waxaad timaadaa halkaad doonayso inaad dhigato qoraalkaaga, waxaad taabataa control iyo v oo u taagnayd paste. waxaynu intaa kusii xigsiisanaynaa qaabka farta loo bedelo oo farta kalarkeeda. waxaynu sameynaynaa intaad doonayso inaad bedesho ayaad highlight garaynaysaa. kabacdi waxaad imanaysaa kuna ku qoran tahay home. markaad timaado font groupka kasii tag, kabacdi waxaad kasii doorataa ishaa soo furo, kadibna waxaad doorataa midabkaad u baahan tahay. saas kuwa waxaa intay noogu xigaysaa sidaynu u samayn karno farta sizekeeda. marka ugu horeysa farta aad doonayso inaad bedeshid soo dooro. markaad doorato fartii waxaad tagtaa halkan. sidoo kale waxaad samayn kartaa fartii isla iyadoo fartii saa kugu select garaysan oo kuwa highlight garaysan ayaa waxaad samayn kartaa inaad adigoo halkiin jooga inaad halkaa ka waaweynaysid, halkaana aad ka sii yaryaraysid. waxay noogu xigaysaa intaa sida loo bedelayo qaabka farta. iminka tusaale ahaan ayaan doonayna inaanu jijiif ka dhigno, halkaasaynu taabanaa italic groupkan fontka inagoo joognaa. deetana tan kalena waxaan doonaynaa inaanu yadna saas oo kale ka dhigno italic. deetana tan kalena haddaad doonaysid saadhe. waxaba haddaad doonaysid inaad mar keliya ka wada qaadid, waxaad samayn kartaa soo wada select garee, kabacdina waxaad taabataa halka ayda. haddaad khadka badan ka qaadiso waxaad taabataa b, kadibna way kaa qaadaysaa. haddii aad rabtid inaad xariiq hoosta ka mariso, noocaadhe ishan soo furo, ka dooro xariiqa doonaysid inaad marisaa noocu noqonayo.